barakaatu soo dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran channelkeena Explore Option Somali insha Allah maanta halkan waxaan kaga hadlaynaa lacag loo yaqaano USDT lacag loo yaqaano ayaa halkan kaga hadlaynaa website-kan waa website aan dhalinyarta mar hore uga soo hadlay oon usoo sheegay website-kan inuu yahay website faa'iido badan dhalinyar badan baa soo weydiiyey u dhaheen website-ka ka soo hadal website-kaas maartay wax uu qabto ka soo hadal iyo qaabka lacagta lagala baxo iyo qaabka lacagta loogu shubto website-kan sidaa ogtihiin waxaa la yidhahdaa USDT baa la dhahaa website-kan waxaa lacagta lagaga shubaa Trust Wallet waxaad ogtihiin maartay website-kan in maartay uu yahay website ku shaqeynaya Trust Wallet waxaa arkaysaan shalay waxaan ka saaray $29 waxaan dib ugu investment gariyay $20 okay waxaa arkaysaa halkan haddaan dhaho haddaan ku dhufto my investment haddaan my investment saan ku dhufto waxaa arkaysaa in ay maartay aan shalayto markii bishu ahayd maartay dooraad markii bishu ahayd 30 bisha 4 galnimo inaan lacag ku shubay isla maartay lacagtaas kale inaan aan ku shubay $20 aan ku shubay isla 25 bisha waxaa arkaysaa investmentigu inuu soconayo 5 days okay 5 days investmentigu soconaya saa arkaysid ba halkaas maxaa ku qoran USD fine 5 days xagan waa 5 days xagan waa 5 days haddaba investmentiga wuxuu kala yahay dhowr qaab markaan xagan ku dhufto meeshan ay ku qoran tahay investment markaan saa ku dhufto markaan ku dhufto meeshan ay ku qoran tahay investment oon xagan imaado investmentiga waxa weeye waxaa ugu yar $10 baa ugu yar $10 waa one day way investmentigaagu maalintii waxaa helaysaa waa daily income 0.4 baa helaysaa maalintii kan waa 5 days maalintii waxaa helaysaa 0.9 $20 baan lagu maartay lagu investment garayaa kani waa $100 waana maartay daily income kuna waxa loo yaqaano waa $6 waana 10 days haddaad $100 dhigato income-kaaga uu maalintii yahay $6 waa $60 tobanka casho bishii waa $180 bishii $180 ayaad helaysaa oo maartay lacagtaasi dhalinyaro badan waxaa jira investmentiga qaabkee weeye u dhahaa lacagta aad investmentiga dhigato iminka haddaan $20 dhigto $20 iyo lacagtii aan helay baa la isu ka raacinaya iminka $20 iyo lacagtii aan helay iminka haddaan $20 dhigtay 5 casho waxaan helayaa $9 $9 5 casho waxaan helayaa $4 iyo 0.4 ii sheegay $4 waatan $4 iyo 0.5 $4 iyo waxaad helaysaa badh $24 iyo barka oo la isu ka raacinaya waa la bixi kartaa 24 iyo barkaba kadib 24 iyo barkaba la baxdo dib haddana 20 waa usoo investment gareyn kartaa okay waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen haddaad imika $100 aad dhigato $100 6 casho kadib $100 markuu 10 casho kadib kuu dhalo $160 markuu kuu dhalo waad la baxaysaa $160 kaa intaad la baxdo haddana dib $100 kale usoo dhiganaysaa okay waxaan rajeynayaa midda inaad fahanteen qaabka lacagta USDT loo soo dhigo perfect loo soo dhigo Trust Wallet waan ka soo hadlay ashara badan baan maartay kaga soo hadlay linkiga website-ka exchange-ga Trust Wallet iyo loo kala dhigo USDT na waan soo dhigay isaga laftirkiisa oo waxaan soo dhigay linkigiisa casharkan habeenka kaga hadlayay perfect money iyo buyer casharkan habeenka kaga hadlayay baan linkiga soo raaciyay fadlan haddaan soo daawan waxaan soo daawan doontaa casharka perfect money iyo buyer linkiga description-ka waan kuu soo dhigi doonaa waxaana ka arki doontaa halkaas waxaa loo yaqaano linkiga abka exchange-ga ama website-ka exchange-ga okay haddaba website-kan qaabka laba qaab baa maartay lacagta loo dhigaa lagana baxaa okay inagu qaabka ugu fudud baynu isticmaalaynaa waxaad imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay my account markaasaa ku dhufatid waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay deposit markaasaa ku dhufatid waxaad koobi garaysanaysaa adresska lagu siin doono waa kan adresski marka aad saa koobi garaysatid koobi aad tiraahid waxaad ku dhufanaysaa halkan waxaad imaanaysaa Trust Wallet-kaaga markaad timaadid waxaa ku dhufanaysaa waxaa ku soo dhufanaysaa lacagta loo yaqaano USDT baa ku soo dhufanaysaa okay waxaad imaanaysaa Trust Wallet-kaaga markaad timaadid waxaa ku dhufanaysaa USDT lacagta adiga kuwa aad maartay ku dhufanaysaa USDT waatan okay cafwan aan laga raadaa Trump baa ku dhuftay USDT waatan USDT markaasaan ku dhufatid waxaad oranaysaa meesha ay ku qoran tahay send markaad tiraahid waxaad oranaysaa waxa loo yaqaano adresskii aad soo koobi garaysatay baad xagga baas ku oranaysaa lacagta aad rabtid markaa waad gelinaysaa okay lacagta aad rabtid markaa okay lacagta markaa halkaa gelisid kadib waxaad oranaysaa send baa oranaysaa lacagtii markaa imika haddana lacagta send nahno $9 baa inoogu jirta lacag inoogu jirta wuxuu oranayaa fiigaaga kuguma filna maarta waxaad arkaysaa imika maarta inuu inoo diray balancegeena iguma filna markaad okay tiraahid halkaa wuxuu kuu saaraya continue markaad continue saa u dhufatid meeshan hadda inoo saarayo u fiirso meeshan hadda qaabkan inoogu soo saarayo
meesha hadda qaabka noocan inooga saaraya wuxuu kugu dhufanaya wuxuu ku oranayaa continue marka continue tiraad lacagtii waxay ku dhacaysaa halkan marka halkan lacagta ku dhacdo waxaad oranaysaa waxa loo yaqaano dib ayaad uga soo baxaysaa halkan ayaad ku dhufanaysaa faraadhan dib u jeeda markaad dib uga soo baxdo lacagtaada waxay ku imaanaysaa lacagtaada waxay ku imaanaysaa halka kan okay lacagtaada markay halkan ku timaado kadib waxaad oranaysaa meeshan ay ku qoran tahay investment markaad investment ku dhufatid lacagta aad soo dirsatay hadday tahay $10 waxaad oranaysaa halkaas ku dhufanaysaa ay ku qoran tahay investment hadday tahay $20 waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay investment okay waxaan rajeynayaa midda inaan isla fahnay haddaan imka $10 soo deposit gareeyay waxaan ku dhufanayaa halkan ku qoran tahay investment markaan investment saan ku dhufto waxaan sugayaa inta uu ii dhamaanayo lawaadhinku marka lawaadhinku ii dhamaado xagga ayaan ku dhufanaya ay ku qoran tahay investment markaan saan ku dhufto hadda wixii oranayaa ma waxaa rabtaa inaad $10 investment garaysid haa baan oranaya haddaan confirm iraahdo waxaa la oranaya lacag kuguma jirto aad deposit garaysid ama aad lacagta inaad maaragtay investment garayso lacag kuguma jirto marka lacagta saa usoo copy garaysato oo maaragtay lacagta aad soo dhigato kadib waxaa weeye markaad confirm saa ku dhufatid lacagtu toos waxay kugu gelaysaa halkan okay dib baan soo baxaynaa halkan bay ku imaanaysaa oo may investment bay ku imaanaysaa kadib markay may investment ku timaado halkaasay ku bilaabmaysaa oo ongoing bay ku noqonaysaa hadhow markii uu dhaco deedka dealku waxay oranaysaa dan bay oranaysaa lacagtu waxay ku soo gelaysaa meesha hadda oo balansigeygu aniga uu yahay eberka halkan waxaa arki doontaa inuu balansigeygu uu aniga yahay eber afaadan dib ugu laabto aniga halkan waxaa arkaysaa balansigeygu inuu yahay eber because lacagta available balansigeygu waa eber $20 igu jiray waa kan oo one investment gareeyay okay insha Allah waxaan rajeynaya inaan middaas la fahnay fadlan haddaad channelka ku cusubtahay subscribe like and share and comment website-ka linkigiisana waxaan soo dhigi doonaa description-ka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh